rabaa inaan ka dareen celiyo shir xalay ka dhacay hoteelka Rays oo uu qabtay wasiirka ganacsiga iyo warshaduhu iyo agaasimaha guud oo isagu technical oo aan ahayn siyaasi laakiin aan ahayn ninka technicalka isagu dabada ka baabilabanayaan wax siyaasi runtii shirkaas wuxuu huwanaa magaca beesha makaahil way ka ballaaran tahay qoys yaroo meel isugu keeno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada iyo dadweynaha meel ay joogaanba waxaan uga digaynaa in shir duceedyada magacda beenta huwan ee dadka lagu kala kaxaynayo lagu ducaynayo gobolada la doonayeen ama dadka la doonayeen qolol madow si qarsoodiye loogu qabto welibana raba inay magacayga isticmaalaan raali kama nihin kulama soconno haddii madaxweynuhu uu message-kaa soo dhiibay oo beelaha in la kala shiriyo uu soo dhiibay waxay wasiirku in iskaanka iska mariyo xalay waxa ka dhacay hoteelka shir waxa loogu magac daray waxa la yiri waa shirka beelaha makaahil baliri beelaha makaahil min reer Axmed ba beelaha makaahil way ka ballaaran qoys way ka ballaaran beenta la isu sheegayo waran kala xishoono magacayn badan baa la xoqay magacayn badan baa sheegateen magacayn badan baa ummadda iyo xukuumadda lagu kala fogeeyay waanu ka soo horjeednaa waanu ka xunnahay annaguna waxaanu qaban doonaa haddii madaxweynuhu raalli ka yahay qaska iyo isku horkeenka ummadda annaguna shir kullidaan qaban doonaa haddii la yidhaahdo shir kullida ayaan qaban doonaa oo aanu ugu baaqayno inay iskugu yimaadaan beelaha makaahil shirkaa waxaanu leenahay aqoonyahanka dhalinyarada haweenka iyo beelaha makaahil muddadiisana anagaa soo sheegi doona laakiin shirka xalay wuxuu ahaa shir hagaardamaha ku ah xukuumadda wuxuu ahaa shir iska horkeenaya dadka wuxuu ahaa shir dana gaara leh wuxuu ahaa shir lagu shirqoolayo xukuumadda wuxuu ahaa shir lagu shirqoolayo madaxweynaha wuxuu ahaa shir jaraafo loogu sii dhigayo madaxweynaha waana shir aanu ka jawaabi doonaa haddii la yidhaahdo jawaab cadnaan ka bixin doonaa haddii la yidhaahdo shirkaa xalay raalli kamaanaan ahayn shir aanaan ogeyn buu ahaa shir qarsoodiya waa shir tuugaa buu ahaa shir waxa weeye si qaldan oo guracan looga faa'iidaystay buu ahaa xalay ma aqbali doono shirkaas shir dhaba oo ka turjumaya danaha beesha iyo dadka iyo siyaasadda xukuumaddaanu qaban doonaa annagu dadka gobolka waxaanu haysanaa dad mid qura oo walaalayna yihiin dad la kala shirin kara maaha gobolka awdal dadka ku nooli waa dad walaalaa waa dad mida waa dad u baahan caqli iyo talo aan se u baahnay kala qaybin gobolka awdal uma baahna kala qaybin gobolka awdal wuxuu u baahan yahay caqli iyo xigmad iyo siyaasad buu baahan yahay ummad ka turjumi kartuu baahan yahay madaxweynuhu qarankiisa wuxuu ku xushay madaxweynuhu qarankiisa isaga isku afgambiyey dadkii ugu quality liitay buu xushay madaxweynuhu wuxuu xushay dadkii isaga majaxaabin lahaa madaxweyne qarankaaga ku ciilay kumaanaan ciilin annagu madaxweyne qarankaaga eerso madaxweyne taageerada gobolka iyo taageerada dadweynaha iyo taageerada ummadda iyo taageerada beelweynta qarankaaga eerso annagaan eersan madaxweyne wassalaamu calaykum